بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم daawada ku soo dhawo barnaamijka qisooyinka nolosha waxaan ku soo qaadanaa maanta qiso aad u layaab badan qisadan daawada waxa ku saabsan tahay nin garsoore ah ayaa waxa uu yiri kiis baa la ii keenay kiiskan muxuu ku saabsanaa nin dhintay oo taajir ahaa ayuu dhaxalkiisa ku saabsanaa ninkan taajirka markuu dhintay ayaa waxa la raadiyay qaraabadiiba la waayay waxa la waayay cid uu dhalay waxa la waayay cid dhashay waxa la waayay reerkiisii dhammaan cid kasta la waayay maxkamadda kiiskii la keenay maxkamaddii baa la yiri baraadi cid ninkan u noqon karta dadkii dhaxli lahaa baraadi oo runtii markaas si dhaxalkiisa loo qaybiyo lacag badanna waa ka tagay ninkii garsooraha maxkamadda haystay ayaa shaqaalihiisii waxay raadiyeen markaa recordkii qofkan baa la raadiyey intee saradiisii baa la baadhay ehelkiisii iyo qaraabadii waxbaa la raadiyey aakhirkii waxaa la soo helay 3 qof oy qaraabo yihiin qaraabo u dhow maaha qaraabo fog ay yihiin 3 qof maxkamadda la keenay garsoorihii baa soo fadhiistay 3 qof waxaa ku yiri waryaareen hebel ma garanaysaan waxaan hebel warniyow dawa qaraabo waanu nahay laakiin qaraabo fog baanu nahay marka waxa uu haystaan hebelkan baa inuu dib sameeyo way ka yara maagayaan inay markiiba iraadaan waa nin aad ugu sii dhownahay way ka yara maagayaan wuxuu leeyahay ninkaasi qaraabo uu ka tagay ma jirto buu yiri xaasi reerna kamuu tagin caruurna kamuu tagin de hantina waa uu ka tagay markaanu baanay recordkiisii baanay 3diina waxaad noqoteen 3 qof ee ugu dhow ayaad noqoteen waxay yiraahdeen waa run waan u dhownay laakiin qaraabo fog baanu nahay weliga da xiriir badan nagama dhaxayno nin xataa noo imaado xafladaha ka soo qayb galo oo nagu xidhana maba ahayn ninkaasi ninkii garsooraha waxa uu yiri ninka lacag buu ka tagay lacagtu ka tagay dhaxalkiisii baa la rabaa idinka in la idin qaybiyo idinka la idin siiyo idinka qaraabada ugu dhow ah idinka la idin siinaya qof kastoo idin kamida waxa ku soo hagaagaya 115,000 oo milyan baa ku soo hagaagaya يعني إلا 30 مليون أو دولار بعلى قف كسو هجاجس على قف بحق كسو هجاجيا وغيران 30 مليون إتهمركو كويري نماكي مد كميدو قامو قال مد كميدو أوينبو بلا مد كميدو سكو دحياعي garsoore ma arintaasi ma run bad ku sheegaysaa ma mid anaga dhaxlayna ma lacagtaasan helayna isku dhaxyaaca baash lacagtu waa balaayade waxa la yiri waa farxiso marna way ka farxinaysaa marna way ka oohinaysaa baash waa balaayo kiiba koomada ka soo baxay garsoori baa wuxuu yiri 3diina dhaxalkan iska leh check mid ka lacagtiisa ku qoran tahay iyo gacanta ka gali 3 check marka gacanta ku dhigeen ayuu garsoori dhageysta ninkan aad dhaxlasaan buu yiri kamuu tagin wasiyo dardaaran kamuu tagin buu yiri sidaa daraadeed maadaama lacagta badan uu ka tagay idinkana lacagtan ay bilaash idinku soo gashay waxaan rabaa inaan runtii masaajid u dhisno marka mid kastoo idin kamidaba in yaroo lacagtiisa oo badnaynba ayaanu ka jaraynaa intaa yar marka hal masjid ayaan ugu dhisaynaa markaas 3 mid kamid wuxuu yiri wallahi inuu aniga caruurtayda badan oo dhibaato ay haysato deema lagu leeyahay ma bixin karo kii labaad baa wuxuu yiri wallahi runtii anigu laftigaygu inuu caruurtayda badan oo duruufaas ka jira kii saddexaad baa waxa uu yiri garsoore ninkii aan naftiisa anficin markuu noolaa anagu maanta wax tari mayno markuu noolaaba ay naftiisa wax taro anagu maanta wax tari mayno garsoore waa yaabay 3 nin oo lacag bilaash soo gashay oo midkiiba 30 milyan soo galay oo laga baryayo lacag yar masjid lagu dhiso lacagta masjid lagu dhiso imsa noqonaysa hatta 100 ma gaadhis lacag yar weeyaan intuu yahay ku war lacagtan bilaash bay ku soo gashay de ilaahay baa siiyay de madnaka inta oo ogolaataan may bay yiraahdeen 3dooduba albaabka ka baxan iyagoo shilin baxan daawada qisadan maxay tilmaamaysaa qisadan waxay tilmaamaysaa daawada inta aad nooshahay ka faa'iideyso inta aad nooshahay haddii ay ilaahay dhaqaale ku soo geliyay ka faa'iideyso sadaqa jaariya samee ilaahay xaqiisa wax sii marso aakhiro wax sii geyso garan maysid maalinta dhimato dhaxalkaaga caruurtaadu waxay ka yeeli doonto ma garanaysid
marka haddaad fursad haysatahay kasii faa'iidayso. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.